بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى waxaan jeclahay in aanu waraysi ka qaadno gaara gudoomiyaha shirkadda Nexum Cabdifataax Maxamed Cabdi Kismaayo oo aan aad u mahadcelinayo bahda tiyaatar in uu waraysigan ka aqbalo inay la yeeshaan insha Allah تعالى waxaan ku waraysan doonaa shirkadda Nexum inta ay jirtay waxyaabaha ay qabato iyo su'aalo muhiim u ah shacabka oo in badan isweydiinayeen oo aan rajaynayo insha Allah تعالى gudoomiyaha inuu nooga jawaabo mudane gudoomiye marka koowaad waxaa ku soo dhawaataa shirkadda tiyaatar production soo dhawaada waa mahadsantihiin inaad soo booqataan xafiiskayga maanta. waxaan rabaa su-aasha koowaad aan ku weydiinayo waxay tahay shirkadda Nexum iyo ahdaafta loo aasaasay iyo waqtiga la aasaasay iyo ilaa inta ay jirtay inaad maaragtay faahfaahin naga siiso. bismillaahir rahmaanir rahiim. waa runtii waa waqti taariikh dheer weeye. magaca Nexum iyo shirkadda Nexum shirkado isu tagay oo ka soo jeeday shirkado korontada bixiya iyo maalgashadayaal ku qancay systemka shirkadda iyo qaab shaqeedkeeda iyo mustaqbalkeeda ayaa maaragtay wadaaga oo asaaskeedii lahaa 2003 baan u malaynayaa bay ahayd markii shirkadda magaca qaadatay laakiin ka hor markii la arkay dagaalkii sokeeye markuu dhacay oo dadku kala irdhoobeen oo qof walba gobolkiisa ku noqday 1993 ayaa dhalinyaro arday jaamacadda u badnaa oo qax isugu yimid waxaa u muuqday fursad ah war dalku wuxuu u baahan yahay ilays markaana magaalada waxaa ka jiray generator yar oo la shido xilligaas ayaa waxaa bilaabmay baahida koronto inay jirto waa 93 bay ahayd kadib shirkado yaryar baa dhowr ahaa wixii baa la soo ururiyay hal mid baa la geeyay magacyay kala lahaayeen neeg baa la qaatay ka bacdina Nexum baa isu gudubtay ahdaaftu waxay ahayd ummad walba meesha ay joogto waxay doonaysaa inay u noolaato sida ummadu u nooshahay marka magaalo dhan oo mugdi oo marka aad maanta soo gashid maaragtay inay magaalo tahay in kale aadan kala garanayn waxay ahayd dib in Puntland inta ogtiin waqtigaas waxaa ka jiray dhowr shirkadood oo dawladda Maxamed Siyaad Bare implement gareysay halkan 1972 baa lagu yiri dawladda hoose baa la set upgrade lama develop gareyn markiiba waa baaba'ay ma aysan shaqeynin lama horumarin markiiba waa baaba'ay marka ahdaafta keenta waxay ahayd ummad meel degan oo doonaysa sida ummadu u noolaato inay iyaguna u noolaadaan waxay ka maarmi kareen ilays roolka wax buuxin karay oo markaas ama governmental dhisnaana ma jirin dawladnimo dhisneed oo buuxin kartay ma jirin dad kale oo markaas u banbaxay oo arkay hadafkani waxa ka dambeeya oo runtii gobolka joogayna ma jirin saasay fikirkan ku timid iyo baahidii warshadahan dabcan yar inaan bilowno energy inaan la heli karin baa noo soo baxay markii koowaad baraf iyo koronto iyo muxuu ahaa warshada yar energy la'aan ma suuroobi karto fikirku halkaas ku yimid ilaahay xamdigiisna maanta too waatan magaalada ku fargaraysay in muddo aad jirteen waxaana ka shaqeyn korontada maxaad is oran kartaa faa'iidaha bulshada ku celiseen والله سؤال في عن ويه wadaniyo bulshadu mararka qaybtood halka waxa soo galaya maxaa qiimo qaali leeyahay ba soo galaysa maxaa bulshadu ku celisay marka la weydiiyo bulshadu waxaan ku celinaa sida aad ka wareysid adigu maaha waxaan afka ka sheeganayo ama company ku dhisayo laakiin waa wax figurisa oo aad idinka laftigiinu aan jecelnahay inaad discover gareysaan qof walba aad dul tagtaan oo wax ka weydiisaan gobolkan aan degannahay magaaladan aynu hadda degannahay waxaan u malaynayaa almost hadaru 90 taqriiban waa gaareen baan u malaynayaa masaajidada haddaysan ka badnayn tirakoobka hadda sanadkan ma hayo 6 bilood laakiin markii ugu dambeysay 87 uu marayay masaajidada waxaa lagu siiyaa korontada free waa magaalada kaliya ee Soomaaliya bilowday in lagu bixiyo korontada free fikirkani wuu socday kambaniyadii kalena waa qaateen maadaama markii ugu horeysay dadkii wax bilbilaabay aan ahayn ilaahay mahadis waa jiraan gobollo wali masaajidada lacag laga qaado laakiin waxaan ku celinaa koronto free ah
sidoo kale maadaama dawladdii awoodeedii aysan aad u adkayn dadkuna uu wali canshuur bixintii iyo waxaasay si fiican u fahansanayn adeegyo waxaa jira lumaya haddaanan kambanigu uusan wax tarin tusaale dadka dhimirka ee waalwaalan korontada free bay shirkaddu ku siisaa halkaasaa la isugu keenay waa dadkaa jiran cid u maqan ma jirto dawadii waxay u baahan tahay in qabow lagu hayo iyaga laftigoodu waa dadka islaynayo midba midka kale u baxsanayo waxaa lagu siiyaa korontada free saldhigyada boolisyada waxaa lagu siiyaa korontada free isbitaalka guud ee Garowe waad aragteen intuu leeyahay waxaa lagu siiyaa korontada free bilaash baa lagu siiyaa jaamacadaha hadeer baa nolosha dadku waxay dhahaan qiimuhu waa qaali lagu dhiganayo tusaale ahaan coverage-geeda haddaan qiimaha ka siin lahayn sida exactly uu u yahay qiimuhu waa sii qaaliyoobi lahayd iyaga laftigooda waxaan siinaa discounti oo gooni ah maadaama ay hayaan rool weyn oo muxuu ahaa dalkii dadkii dan u ah street lightska waa ogtiin waa dhexdaas magaalada waxaa inoogu jiray solar badan sii damayaan tartiib u sii damayaan teknolojiyadaas markiina talan ka bixino waxaan ku niri wareer haddii wax la helay aynu si kale uga faa'iidaysano wax sustain aan ka dhigno laakiin street lightska hadda magaalada aan gelinaa waa free meelo badan buu ku jiraa inkastoo aan xadadnayn hadda oo qof walba anna ay timid laakiin waxay tahay street lightska lagu celiyey intaan kuu sheegay saldhigyadii baa lagu celiyey isbitaaladii baa lagu celiyey waxaasi waa waxa koos garaynaya qiimaha inuu qaali ahaado maxaa dhacay kambanigu wuxuu ku dhisan yahay waxa laga ururiya dadka maadaama dadkii ay ka faa'iideysanayaan oo adeegan aan bixinayno oo ah bilaashka ummaddu aan looga sokayn qofna waalidka da'da habeenkii 3 saac 7 saac socda maxaa 9 saac socda oo aan u cibaadaysanay masaajidka u socda iftiin buu u baahan yahay security-giisa xataa iftiin buu u baahan yahay marka bulshada waxaan ku celinaa qiimeyn hadii la dhaho waxaan dhihi karaa sanadkii 5 milyan way ku sii socotaa sanad walba waa kordhaysaa sanad walba markii magaalada extension samayso ballaarata magaalada baahiduna waa la ballaaranaysaa wixii bilaashkaana waa la ballaaranaya inahaasaan hadda arkaa inay bulshada ku soo kordhiso waxay kaloo ku soo kordhisay hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd teknolojiyadii hadday noqon lahayd waxbarashadii arday aanan helaynin electricity uu wax ku barto isagoo bay garaynaya aan helaynin suurtagal ma ahayn inuu maanta to ay helaan opportunities fursadaha ay haystaan hadda qof walba meeshuu joogo Facebook ku isticmaalaya qof walba meeshuu joogo electronic wuxuu kala soo degayaa Google-kii waxa sahlaya waa energy-ga waana wax hadaysan jirteen ay ku adkaan lahayd inay ilbaxnimadan la jaan qaadaan dadkiina tusaale idinka markaan idin iraahdo energy baa u baahantiin energy la'aantiis wax ma idin kala soconaya lacag baa leedan ka qaadaa waa sax haddaan adeegu meesha ka maqnaan lahaa maxaa dadka lagu celin lahaa su'aashu waxa maxaa dadka tarteen in koronto la haystaa wax tar abaan ku leeyahay waxaan rabaa inaan ku sameeyo jawaabtaada hadda qayb ka mid ah magaalada iftiinkeeda inaad qayb ka tihiin magaalada labada dhinac ee laga soo galo ilaa iyo bartanka barxadda Garowe ilaa iyo madaxtooyada hore qaybo badan oo magaalada ka mid ah waa mugdi waana la socotaa maxaad ilaa iyo hadda talaabo uga qaadi lahayd oo caasimadii dhamayd haddii dusha laga eego habeenkii ay mugdi u tahay su'aal fiican waa mahadsantahay in la yiraahdo street lightska magaalada laambadaha magaalada oo dhan full responsibility-geedu company ha qaado waxay u baahanaysaa 1 2 3 2 3 4 qodob oo in la isla meel dhigo u baahan marka solarka la keenayay dhaqaale badan baa ku baxay anagu talaan ugu geynay dawladda hoose especially oo shaqadan si gooni u qusaysay waxaan ku niri ma ahan sustain macnaha jiritaankiisu solarkaana hadda u socotaan jiritaankiisu ma ahan wax waqti fiican qaadan doona marka hadda tala haysaan maadaama aan hesheen mashaariic dhaqaale noocaana la leeyahay waa la idinku bixinaya aynu wada fadhiisano oo ka wada hadalno inaynu ka wada faa'iideyno kambaniga wixii uu ku kordhin karo ku kordhiyo
shaqadanna ay noqoto shaqo joogta waagii soolaradan la xiraya sheegaysaa markii waxaan la xiriyay ma suuroobin dheg jalaq looma siin waxaanu isugu nimi haddana inaan idhaahno war qaabka electricity-ga waxaa qaadataan site annaguna aan wax qaadano kambanigu wax qaato idinku hawshan waa awl dawladda hoos qusaysa maaha wax shacbiyadii kambaniga kaliya uu ka dhigi karo free waxa marka codes bay u baahanaysaa in nidaam loo dejiyo u baahanaysaa in laga wada hadlo oo dawladda hoos oo mas'uuliyaddan lahayd iyo kambanigu isla meel dhigo bay u baahanaysaa tusaale hadda halkaas waxaa ku jiray straight light solar buu ku shaqaynayay maintenance joogta buu u baahan yahay waxyaabaha dadka sida goonida u niraan war annaga ayaa mawduucan fulinay waa open baan nahay maaha dad maaragtay annaga xagga ku xiran leh waa ognahay solarka waxaad ka keeni kartaan waa ognahay batteriga la saaray waxaad ka keeni kartaan waa ognahay laambadan inta idin shidaan karto mashruucani maaha system wax lagu gaari karo hadda tusaale yar waxa ah inaan idin tuso leenka madaxtooyada aadaya oo ay kambanigu dhiseen marka xaqiiq sheego si fiicanna waa u ifayaa at the same time walwal kama qabo next 20 years uu shaqeynayo ama 10 years uu shaqeynayo waxa kaliya oo u baahan inaan wax ka bedelo waxay noqon doontaa shil ka dhacay hadda already hadda shil baa ka dhacay shilka inaan laambadii waxa ka bedelno simple waxaan u gartay mashruucaas inaad qayb ka noqotaan inaad rabteen oo si aad maaragtay idinkana uga faa'iidaan aad korontadan ugu xirtaan laakiin ay suurtageli weysay haddii taasi ay dhacday marka oo ay sida aad rabteen ay noqon weyday magaaladuna ay mugdi tahay soo weli muxuu ahaa lagama faa'iidi karo soolarada ku dhegan muxuu ahaa laamiyada magaalada in aad korontada ku xirtaan oo aad leyrka muxuu ahaa idinku aad u shidaan ilaan magaalada waa magaalo in ku dhow 1994 ilaa iyo hadda aad ka shaqaynaysaan oo shirkad idin lamaanisan aysan jirin oo idinku kaliya aad u tihiin shirkadda korontada u qaabilsan waa mahadsan tahay wadani horta ma ahayn mashruuca inaan ka faa'iideysanayno laakiin waxay ahayd inaan bulshada uga faa'iideyno si uu jiritaankiisu ay waqti dheer u noqoto talaan ka bixinna hadeerna talada aan ka bixinayna waxay noqonaysaa sidee yeysan kambaniga wax ka soo galine bulshadu wixii loo keenay ay uga faa'iidaan position ku wataa waa run kambaniga korontada bixiyaan nahay waxaan u baahannahay responsibility-ga fiiri waxaan mas'uuliyad baa ku jirta mas'uuliyaddan in ay consortium ka wada hadlaan oo dawladda hoose ku jirto iyo cid kasta oo xiriir la leh hawsha waa xasuusta waaga Eldoriska ka mid ahaa dawladda hoose ka mid ahayd anagoo noloo yeeray baa ka mid ahayd waxa jirta hadda ka hor hay'ad kale waxaan ku leeshiinay energy-ga bixinayna anagu waxa kale idinku baasho waxa la gabay in anagoo korontadii bixinay oo niri korontada aanu bixinay ku xirnaa street lights-ka oo qorshe loo sameeyay la dhahay baash ma aha wax fantastic ah laga dhigo baahidu sidee wadada iftiin ma tahay mise maaha laga fikirayo survey inta la soo sameeyo la baaro la meesha mugdiga ku badan xabadaha lagu xiro meesha dayactirkii baa la qaadi kari waay waxay noqotay all of us wax kasta ina maaragtay kambaniga fuul markii dambe aanu niri warwaaya mashruucan hadda gasheen kii hore naga fil garoobay sidaan loo xaliyana ma aysan suuroobin waan jeclaan lahaa maanta inay gudoomiyayaashii waagaas maxilka hayay iyo dadkii shirka aan wada joognay ay yimaadaan neeg waxay diyaar u tahay sidii magaaladan ku ifilahayd inay tala ka bixiso dhaqaale ka bixiso waqti ku bixiso marnaba ka zuulimayno hindisada koowaad markay maskaxdayda galaysay waxa ka mid ahayd anoo baso ka imaan buurta magaalada koonaheeda ay mid laba saddex laambadood baa magaalada ka shidnay waqtiyada aan ku sheegay inaan wax istaarnay hadana alxamdulillah waxaan maanta ka wada hadlaynaa way wada hebel u mugdita kama wada hadlayno magaaladii oo dhan waa mugdi haduu hadda hadalkaagu haduu yahay magaaladii oo dhan waa mugdi waa gooni moogti magaalada waa shidantaan ku leeyahay inta straight line ee laamiyada waaweyn lagu xiray waxa ka badan inta xaafadaha aanan soolaradu ku xirnayn ku xiran oo dadka madaxda ha noqdaan dadka bulshada waan loo imaanay waxa leeyahay xagga mobilkii baa laga furanaya dib baa naga haysta waxaan u dirnaa dad soo baara arka meesha suurtagal ma tahay ka bacd marka soo baxda exactly ma ku xirnaa laakiin Soomaalidu marka qaybtooda hadaad guriga isku xirtid xaafadda ku xigta islaanta joogta waxa leeyahay bilaa laambadu waa loo xiray waa in loo xiraa ma yeelno marka waxa waa mahadsan tahay taa markaan ka gudubno hadda marxaladda lagu jiro marka la eego wuxuu Soomaaliya dhankeeda marka la eego shidaalka dhimistiisu ama qiimaha shidaalka waxay gaartay meeshii ugu hooseysay qiimaha korontada Nexo
weli waa sidiisi sidee baa labada isku barbar dhigi kartaa aad iyo aad baa umahadsantaha waana su-aal saxa in nala weydiiyo waana su-aal aan isleeyahay waxaa u qooman dadka waddanka degan oo dhan horta shidaalka waxaa anagu aan ku tirsannahay systemka waa idin geynaya haddaad doontaan waa idin tusayaa waxaan anagu ku tirsannahay boqolkiiba 68 waxay ku baxdaa shidaal waddankeennu shidaal ma soo saaro isku day badan baan samaynay inaan solarkii ka faa'iideyno inaan winkii ka faa'iideyno haddana maaligeeda uu u baahan yahay iyo waxa aan samaynaa yar waxaan waa pilot marka la fiirso solarku waa pilot marka la fiirso winkuna waa pilot laakiin waxa meenka ah ee ilaa hadda lagu dhisan yahay waa weli shidaalkii baa lagu tirsan yahay saacadaha ugu badan waxaa qaata muxuu ahaa shidaalka wuxuu inooga yimaadaa carab wuxuu inooga yimaadaa qiimo qaali ah koronada koosgaraysay in shidaalku uu gaaro meesha ugu hooseysa soomaalidu corona sabab u ahayd shidaalka meesha ugu hooseysa inuu gaaro dalkeena Soomaaliya dal u diyaarsan infrastructure-ka noo samaysan macnaha kaabayaasha inaga inoo samaysan uma diyaarsana fursadda noocaan oo kale in laga faa'iideysto haamihii waddankeena ku yaalay waxay ku buuxsameen within bishii ugu horeysay waa buuxsameen haamihii waddankeena ee kaydka ahaa maadaama ay buuxsameen cost-ka qiimaha waxa jabiyana ee koronaha tahay tomorrow flights iyo gaadiidkii la bilaabayo guddigu waa shiray waa la fadhiistay waxa la yiri haye maxay noo talaa maxaynu samayn karnaa qiimaha ma bedeli karnaa waxa la yiri laguma dhisi karo koronada laakiin after corona ha loo fadhiisto haday suusagal ahaato inuu sustain inuu joogto ahaado shidaalka inuu hooseeyo barayska in la bedelo waa xaq laakiin isaga oo ku yimid transaction hadda dhacay hadda gaadiidka markuu furmayo diyaaradaha uu cirka isku shareerayo ee wax lagu qayb qaadan karo maanta mid kale inaan ku iraado 0.2 baan ka dhigay saddex bilood ka bacdina aan ku iraado 0.5 baan ka dhigay logical business ethics ma hata ana bimsharigu noocaas ma fikiro bimsharigu dadkeenuna ma aha dad u samaysan variation-ka maanta waa dhacay waa ku kordhiyay maanta uu kordhay waa ku kordhiyay dad u samaysan ma ilaa waagaan business-ka bilowday graduate baan u degaynay tusaale ahaan waxaan ku xasuusinayaa price-ka waxaan dhignay 0.2 baan hal mar dhignay marka mashruuca noogu horeysay aan fulinay impact-gii ka soo baxay wuxuu ahaa in la ku caayo war ma 0.3 ma dhaqaala bal waxa ninkaas ku hadlayaan 0.2 ma dhaqaala bal ninka wax ku hadla war hadda maxaan ka qaadi jiray gabiga 18 kun baa ka qaaday haddaan 18 kun 4 kun ka tagay oo 17% ah how do you think secular taadiga marka issue-ga ah price-ka aniga aaminsan inuu qaali yahay in Africa meeshaan ku jirno infrastructure-keena meesha aan degannahay inay joogto ahaato adeegan in la hayo qiimaha aan da wax lagu bixinayo waa qaali ma justify gareynaa inaan leeyahay dadku waa inay saasi ahaadaan laakiin waxa go'aan naga ah inaan stain intaan aragno ka bacdina hadda 30 sanaad ku dhowdihiin intaad jirtaan oo aad shaqaysay ilaa iyo intaas fursad ah ma waxa weydeen in aad haba yaraatay aad dib uga dhintaan dadka lacagta korontada ee ah mid aad iyo aad qaali ah oo aad uga cabanayaan dadku waa dhinay qiimaha 0.7 baan gaarsiinay waxaan rabaa inaad si sahlan aan wax yar ku tuso 0.79 baan gaarsiinay waxaan ka soo kaxaynay almost waxaan gaarsiinay hadda aan joogno 0.3 ilaa 0.79 isticmaalkaaga ku xiranta haddaad heerkaa gashid 0.3 baa laga qaadaya haddaa heerkaa gashid 0.4 baa laga qaadaya magaalooyinka waaweyn oo ay ka tahay magaalada Muqdisho magaalada Hargeysa burco marka loo eego 7.9 kiina iyagu aad bay u hooseeyaan 0.6 bay marayaan waa mahadsan tahay aan ku dhameeyo halka population-keenu wuu yaryahay inaad u bardhigtid 300 kun oo customer nin haysta iyo nin 13 kun haysta horta laftigeeda aqligeeda inay yeeratay waa muhiim haddaadan ogeyn inaad ku xisaabtanto waa muhiim customer-keenu intaas u dhanyahay 13 kun iyo nin 300 kun oo customer haya labadaas waxa ku jiri kara waa dareemi kartaa service iyo sida shaqada noqonayso number 1 number 2 I know waa run hamar 0.36 ba waxa average ka kore
inta ugu hooseysana 0.25 cents 0.25 centska boqolkiiba 2 qof ma gaari karaan 5,000 iyo wixii ka badan boqolkiiba 2 qof boqolkiiba 2 qof ma gaari karto anagu hada waxaanu sameynay intaan bataal ugu dhawaaqan ka hor baan waxaan sameynay barnaamij 0.3 levelka inta dhan inta gaara waxay noqdeen saan ku sheegay boqolkiiba 5 ma dhama dadka gaari kara waxaan kugu waafaqsanahay 30 sano shaqeynayna waa sax 30 sano anaga World Bank iyo fanna masin IF fanna masin dawladda Soomaaliya fanna masin waxaan ka bilownay magaalada Yaanmar 3 kilowaada shidayo graduate shirinka laga qaado baanu wax ku darnaa markaanu ka noolaano baanu ku celinaa waad aragtay magaalada daafeeda korto uga saartay waa la korinayay dhismihii iyo infrastructure-kii baa lagu celinayay sanad walba development-geeda wax lagu celiyaa now aan joogno 30 sano aan ka dhaxgalay 30 sano aad hadda shaqada wadeen naftigeeda horumar badan baa sameyseen hadda kaliya shidaalka inaad ku shaqeysan waa ka gudubteen madaxdaha dhaliya korontada ayaad keenteen solar waaweyn ayaa idin yaala waxa soo isbedela ayaad sameyseen sababta marka ilaa ay hadda isbedelka xagga bulshada aad uga dhimi laadihiin waa calaamad su'aal idin dul saaran waxaad moodaa inaadan jawaabteeda qaadanayn waxaan kuu sheegay in serviceka dadka lagu celiyaa uu kooska qiimaha saaran ka mid yahay ma jiro company Soomaaliya ka jira oo public service ka saa wax ugu celiya jaamacadaha ahaadaan isbitaalaha ahaadaan saldhigyada ahaadaan street light ha ahaadaan ma jiro haduu jiro iken whether inuu Muqdisho yahay whether inuu yahay Hargeysa marka adeegan dadka lagu celinayo wuxuu ka mid yahay qiimaha qaaligiisa at the same time ku dhihimayo hadalkaygu ma aha right position buu joogaa oo mas'uuliyad aan maalin walba ka fikirayno way see ku dhinaa maxaan talaabo qaadnaa see ku dhinaa maxaan talaabo qaadnaa laakiin waxaad ogaataa wadaniyo sentiska laga qaadayo waa lagu develop gareynaya waxa aad leedahay waa la hormariyay wixii ka soo jeedaan cid kale wax siisa maaha dawlad kabta maaha waa sentiska laga qaaday adduunka marka timaadin adduunka adeegan dawlad baa gacanta ku haysa dawladda gacanta ku haysana profit maaha ujeedkeedu waa system dhaqaale guud inay wadanka ku hayso waxaad arkaysaa isagoo ugu kacay 0.7.5 isagoo ugu kacay baa dadka waxa leeyahay 0.2 ha laga siiyo masar xabada rootiga waa la kabaa waligeed insan qaaliyoobin baa loogu talagalay dawladda kabaysa inagu stage-kaas ma joogno waxayna exactly roots baa wax ka bilownay dhulkeen wax ka bilownay tartiib baan ula gorob garanaynaa qodobka kale aan rabay inaan ku soo noqdo waxa tiri qoraxdii baa keenteen winkii baa keenteen yes exactly waa keenay laakiin waa pilot kan waa tijaabinay waxa laga dheefsan karo waa solarkii markaan aragnay waxaan niri waxaan lacagtu u baahan yahay waa huge waxaan niri halkan intaan yarta hadii laga dheefayo bal dhaqaale kale intaan la gelin winka ha lagu sameeyo winkii baa isagana pilot ka sameeyay sanadkii labaad baa hadda u dhamaanay sanadkii saddexaad baa hadda u dhamaanay ama ku dhex jira pilotkii aan ka sameynay isagana study buu ahaa maxaa ka soo bixi kara waa aragnay is the right time waa hadda xilligii saxda ahaa oo la dhihi lahaa kana danteena ku jirta hal fidiyo kana danteena ku jirta hal fidiyo laakiin Roma hal maalin lagu ma dhisin ugu way tusaale haddaan soo qaato magaalooyinka dalkeena Soomaaliya ku yaala qaybtood waxaa ka jira 2 shirkadood 3 shirkadood oo koronto ah tartankooda iyo isbaacsigooda iyo inay maaragtay shacabka u kala tartamaan waxa ay dhalisaa in ay qiimaha hoos u dhimaan magaalada Garowe marka la yiraahdo oo la eego shirkadda korontada hal shirkad baa ka jirta oo la yiraahdo Nexum waa mid aad gudoomiyaha u tahay waxyaabaha la isweydiiyay ayaa kamid tahay waxa kamid ah oo dadku inta badan ay isweydiiyaan sababta cidii isku dayda magaalada Garowe in ay shirkad ka samayso koronto aad idinku u hor istaagtaan oo aad u siisaan wuxuu ahaa share la xiriir shirkadiina si halka ay uga baaqato in cid kale magaalada ay koronto ka samayso waxaan jeclaan lahaa marka su'aasha ay weydiinaysay inaad tiraahdid waxaan maqalnaa waxa la yiraahdaa laakiin hadda tiraahdo sababta aad u istaagtaan maxay tahay macnaheedu waxa weeye adaab aaminsanba laakiin I am sorry hadalkii suuqa yaala baad weydiisay wax ka jira ma jiraan qof walba oo wadanka jooga rightskiisa wuxuu xaq u leeyahay dawlad baa kula xisaabtanta anoo kula xisaabtano
anagu qof motor shidanaya mid shidi kartid mid damin karna ethics ma lihin hadii laga dhaadhacshina waa qaldan yahay laakiin hadii fursad loo siiyo laakiin laakiin qofka hadii fursad loo siiyo in uu shirkaddan weyn ka mid noqdo qofna ma niraahno ma maalgelin kartid qofkii maalgelinayana ma samayn kartid ma niraahno waxaasna business ethics maaha anagu ma sarjanta saamul doomiyana 3000 dalka qabsaday no business baan bixinaa qofka markuu shirkadda intuu yimaado yiraahdo waxaan rabaa inaad ku tarsado haddii shirkaddu markaa baahi u qabin inay wax lagu daro lama siiyo jaanis haddii laakiin u baahan tahay in wax lagu daro dhaqaale la geliyo yes waxa weeye waa laga yaabaa in qofka lagu daro laakiin warka suuqa yaala Facebook mararka qaybtaan ka akhrinay dhahaya qofkii yimaado waa u yeeraan oo shar bay ku daraan bal dhaqaale badan hal soo qaado aan ku darnay caasimadu meeshan ay caasimad tahay oo Puntland caasimad u tahay oo inta badan la isugu yimaado isweydiinta noocaas way jiri kartaa kulay siday ay muxuu ahaa dad badan ku celiyaan marka inta ka gudbo xilliyada roobabka oo roobku u da'o khatar badan ayaa runtii ka dhacda xagga korontada qoraal soo qortaan oo aad beejkiina ku soo qortaan oo aad leedihiin iska ilaaliya korontada hataabanina baalaha 30 sano soo jirtay saashay baalle inaad bulshada ka badbaadisaan ma awoodi weydii oo aad farsamo kale keentaan thank you very much waa wax jira inaan awareness ka sameeyno oo niraahno xilliga roobka lagu jiraa xilliga roobka maadaama lagu jiro waa inaad ka dugtoonataan adduunka energy ka jiro oo dhan qofna intuu baala u tago isma marmariyo qof walba baalaha distance buu ka qaataa halka ogow waa adduunka oo dhan nin intuu baala u yimaado ama roob hadda ama yuusan diine isku marmara ama taabtaa ma jiro anaga hadda fiiri waxa maanta waxaan ku jirnaa July xilliga dabaysha ugu badan tahay baa jirta saameyn badan bay yeelataa sanad walba xilliga roobku da'ayo waxaan sameeynaa improvement in la dhaho ha lagu soo sameeyo ha la soo sameeyo in leemankii la maro dabayli xoog gal badnaa waxay bedeleen shilka maalin walba dhacaya tusaale yar baan insiinaa waxa weeye ilbaabkeena hadda baalaha ka taagan gaari haduu ku dhaco oo ogtiin dadkeenu inaysan jirin halbeeg ay ilaaliyaan oo darawalnimada ah oo nin walba maalintuu arko furaha gaari geliyo markuu baalaha ku dhaco waxa wadaniga suurtagala baalaha 20aad inuu damage sameeyo oo uu fuulo waa baalaha 20aad inuu dhaawac ku sameeyo soo sababta aan u leenahay u wacyi gelinayna mar walba leenahay warbaalayaasha birta iska ilaasha warbaalayaasha birta iska ilaasha economic wasna waa ku jirtaa dhaqaale ahaan baalaha birta oo dhan hadii laga guuro oo shub loo guuro waa one of the solution mid halka kamida waay maaha marka waxa in la aqoon waayay maaha laakiin dhacdooyinka dhacaya baa sababa in ay connection kaas yimaado adduunka ka dhacda Soomaaliya meel kasta ka dhacda Afrika ka dhacda waa fahant standardkii isagoo lagu xiray oo aan waxba lahayn ba hadda shil dhacaya ama waxba qaldamaya ama dabayl baa keenaysa waxa laga yaabaa saacad kadib bacdi meeshii hadda caadiga ahayd inuu connection ka yimaado marka faultigaas runtii waa run standard inta ka sii weyn inaan raadino waana waxaan daba ordayno waxaan wax ku bilowno waxa fiinaan lahayd maanta to hadda mar hore ku soo ogaan projectiga aan ku soo iraado xagee ka bilownay maalintaan bilownay see u ekayn hadda inta joognaa qofka sawir buu naga qaadan karaa yaan mar 3 kilowaad ah oo handle lagu kicinayo baa magaalada motor waxa marka ma difaacayo hadda inaan leeyahay dadku ha dhintaan xooluhu ha dhintaan magciisi yes technology intaan ka sii weyn oo ay aqoonteedu maalin walba dad baa u fikiray iPhone ka maanta wadatid qof baa maalin walba technology ku daraya waa ku jirnaa tryingkeedii raadinteedii war xalku muxuu yahay maalin walba injineeraan keena soo hayr gareena oo aan isleenahay bal inay wax ku kordhiyaan arinkaas marna excuse ka bixin maayo qof kasta oo nool inaan badbaadino iyo xayawaanka waana la ka rabaa waa responsibility shirkadda laga rabaa waayahay cabashada kale badan oo xagga shacabka ka timaada waxa kamid ah dhinaca saacada isticmaalka ay dadku korontada isticmaalaan iyo lacagta lagu soo saaro waxay dadku intiisa badan aaminsan yihiin inay kala badan tahay arinta ma u kurgashay walaale waa wax jira cabashada ay sheegaysid oo dadku ay macnaha ku cabudaan laakiin reality markaan ku sheego de company awood uma leh inuu qof wax isaga dalaco waxaan jirin inuu maaragtay qof saara awood uma leh
fiiri markhaantiga anana dhex yaal waxa waaye adigu customer baa tahay wadani saacad baa gurigaaga ku dhegan nin shaqaale ka mid intuu yimaado saacadda ma taabto kabil baan waxaan imaanaa hal maalintaasaan waxa meesha ku jira akhrina we don't have access aanu wax kaga bedelno marar bay dhihi jireen way soo buufiyeen bahal la soo jijibshabay keeneen anagoo ka fikiraynaa waxyaabaha caqabada waxa ka mid ah quality-ga saacadda hadda complaint-kaas waqti buu jiri jiray cabashadaas war bay jiri jirtay laakiin hadda aad bay u degtay waagi hore shirkado korontada ka shaqeeya baa nin walba suuqyada jayna iyo meel walba tagi jiray saacadu soo qaadan jiray saacadahaas dukaamada yaalay dadkaas soo gadan jiray bedel maalin waa ugu badatay bedel maalinta dambe shirkadu waa fikirtay waxaa la raadshiyey company exactly booskiisa inta la tago quality-giisa iyo dadka sabalay garaynaya iyo wadamadu wax siinaya la arko kadib markaan ku qanacnay inaan niraahna waa keenaynaa inta waxa ka dhacay you can't imagine ma malayn kartid markaan ina saacadahan aan keenay guarantee baan bixinaynaa hadday ka xumaadaan inaga bedelaynaa saacadaha shirkadu keenay oo mas'uuliyadeeda oo aan kostiisa kabno fiiri suuqa ku ayaale $13 habrii waxay yiraahdeen maxaa adiga kaadna ugu qasbisaa waraadu waa ka quality fiican yahay waa ka qiimo sareeya waa ka fiican yahay no $13 soo gadanaa waxay anaga ugu kaliftay iyagoo $22 noogu fadhiya inaan $13 la siiyo oo si loo ilaaliyo oo la yiraahdo qofka hadday ka xumaata anaga bedelayna opportunitieskaaas sayto oo aan islahayn dadka cabashadiina iyo idinka ka dhaxeeya hal baad ku gaaraysaan impact badan baa naga soo noqday dib badan baa naga soo noqday waxa laali wixii korta gadaysay media tageen inaan maqasheen oo malaynaya waa ka shirkad weyn oo doonaysa inay khasaariso war waxaan ku yiri saacada waa ku feel garowdeen baalayaal baa gadaan fiilooyin baa gadaan miyaan u gadnaa maya waa ku feel garowdeen saacada dadkii iyo anagana wixii ka sababoobay ee dhex taagan tahay marka waxba idinka weydiinay way gabagabadan hadda waraysiga marayna aad baan u mahadsan tahay su'aasha kale aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeye dad danyar ah oo aan awoodi karin mararka qaar inay korontada la baxaan ayaa jira oo noocyo badan isugu jira deegaanka dadka kale muxuu ahaa Soomaalida ay walaalaheena ee halkan yimid oo waa qayb ka mid ah kulley Soomaaliya oo in la wada noolaado dhib kuma jiro inta marka laga soo gudbo iyadoo dadkii ka warhaynin oo aan muxuu ahaa isla markiiba waxa la jaraa korontada qofkii korontada laga jaraa sababta iyadoon ogeysiiskaas uusan dhicin ama in koronto qiimeyn aan lagu sameeynin dadka danyarta ma u baahan yihiin korontada xaaladday ku sugan yihiin in korontada laga jarto soo qayb ka mid ah culays shacabka saarisan maaha waa mahadsan tahay waxaa fiicnaan lahayd inaad xog fiican horta og tahay laakiin waa wareysanaysaa xogta haddaan ku siinayaa dadka korontada lagama jaro ilaa la ogeysiiyo ugu yaraan 60 maalmood bay ku gaadhaa anigu Swiss baan deganaa 30 bisha 24 bisha biilka lii keeni jiray within 10 days haddaan bixin $10 oo saaran bay iimaanaysay hadday ay 20 casho gaadho $60 oo saaran bay iimaanaysay waxa laga yaabaa inay kugu gaadho $100,000 anagu saa kuma dhaqano dadka 30 casho markay dhamaato warqadda ogeysiiska loo geeyaa lacagta bixi ah qofka la socda life-kiisa oo maamulkiisa shakhsiyadeed fiican yahay isagaaba intuu ku soo waco wuxuu leeyahay wadnimo bishaan waa leeyahay leeyahay biilkaygi xaaladeedu si weeye hal ii dib dhigo kama jarno qofka loo geeyay warqadii ogeysiinta leeyahay waa lagu magiciisii 60 maalmood markay gaadho 60 days markay gaadho markaas korontada isagoo la waco isbuuci 2 jeer ugu yaraan lama ogeysiyaa tiri moogta isbuuci ugu yaraan 2 jeer marka la waco markuu dhaafo 30 days markuu dhaafo 30 maalmood wixii ka dambeeya isbuuci 2 jeer waa la wacaa qofka waxa weeye sidaan u sameysanahay waa ku tusayaa countries baa jira qayb walba dad baa qaabilsan computerkii daatadii buu haystaa callkii buu haystaa qofka ay ku gaadhay 60 casho oo shaashada u saaran waa wacaya ilaa marka ugu dambaysa ay gaadho qofkii in laga jaro midda ah dadka danyarta ah iyo qof biilka bixin waay waa kala labo danyarta meelaha ay degan yihiin laambad babliga waa loo shidaa waa fahantismaa tusaale ahaan
hadda kaab shabeelle oo kale marka la dhex mariyay laambadaha meesha dadka xaafadaha isku rarnanka ah oo kale laambadu waa loo xiraa oo wax kambanigu bolisigiisa isagu samaystay laakiin isticmaalka marka la dhaho muxuu ahaa qofka la yidhi rukunka $5 bixi $5 bixi hadduu shumac gadan lahaa bal caqligaaga $5 bishii intee ka noqon lahay hadduu faynus intuu shubto gadac naaftaa soo gadan lahaa $5 bishii intee ka noqon lahay waxaan ugu talagalnay ummadaas bayskoodu yar yahay inaanan oran waxba ma isticmaalayso orod iska tag the minimum cost oo laga keenay wixii ugu yaraa oo laga keenay maxay markii waxa laga fikir waxa leeyahay qofkan gadaca naaftada ah markuu maalin walba gato 30 gadac bishii maxay qiimo u noqon karaa markii la ogaaday baa waxa leeyahay okay $5 ha laga dhigo laambadiisana ha helo qofku anigu waxaan aaminsanahay inaanu nahay maskiin kaaba dadka inaanu wax tarno streetkii baan ka tarnay security dadkan wax ka tarnay meelaha mugdiga ah inta mobilada lagu jibsanayo dadku waa noo yimaadaan xaafadaan soo leenka no hormala waa mugdi gabdhaha banaanka ka soo bixi waayeen sarfeen baan u dirnaa waa la soo arkaa waa laga soo sheegaa laambad aan shin lacag kaga bixin baan ku xirnaa marka dee qof yara oo social media xogaa laba kelmadood dhigay iyo dalka infrastructure-kiisa laga hadlaya adiga hadda su'aasha maanta ku weydiin lahaa waxa haddii maanta la dhaho laa qadar Allah neeg waa danti adeegii saaka lama hayo bulshada wadankeena hadda magaaladan ku noqon intee isleedahay problem dhaqaale waa ku tahay economic-geena kala wareeg dhaqaalaheena kala wareegaya laf dhabar bay u tahay inay joogo 200 qof ku dhawaad baa hadda kambaniga wadaaga kuwaana weligood arag codkooda kaliya aqaana wuxuu u yahay magaaladan aan degannahay kambanigan maanta wuxuu u yahay laf dhabarka dhaqaale amni iyo caafimaadba haddaan warkan kuu sheegayo uu sax ahayn dadka loojiga ee aqoonta leh warayso hadduu sax ahayn igu soo celi jawaab wamaad su-aashan inaan soo koobtaan jeclaan lahaan ku weydiinayo inta magaalada Garowe aan korontada loo xirin ama aysan koronto helin in muddo ah magaalada waa ku nooleed sawir noocay ah waad ka bixin kartaa sidee waxaan ku siin karaa image-kii baan ku siin karaa aan ka qaadnay markii ugu horeysay oo aan dhignay muxuu ahaa Leymanka jidkaas wadonka aad aragtid 3 qol baa ka taagnaa jidkaas wadonka aragtid baalayaashu iyagoo qalalan oo wax ku dhowsan jiray bay saa u taxnaayeen maalin walba waxa ifeys gareeyay nin hadir yimid oo leh dhulkaygii baa ku jirta ee durk problemka ku jirta laamigaas aad aragtaan oo jid cadda ah oo diiran baalayaashii aan dhignay sawirkii aan ka qaadnay oo hadda markaan inta soo asleeysan masaana Garowe u ekeyd baa nin intuu maanta boos gato ama kii gaday ka dhaadhacshay wuxuu igu imaanayaa baalaha ku jira ka saar 2006 14 sano ka hor meeshii laga taagay wuxuu leeyahay maya waa inaa ka durtaa hadda maalin dhaweyd bay dhacday muxuu ahaa nin baa dabaq dhisanayay markuu dhisanayay baan u nimi waxaan ku niyay riski ku yahay dadka bahalkan barnaamijkan gadaal u durka saan suurtagal ma anaga awoodi ma lihin dawladda hoose ma lihin dawladda dhexe ma lihin hornulkayga anaa gatay buu yiri saas u saaray shaqaalihii mid ka mid ah korontada qabsata who will take the responsibility marka wax badan baa jira runtii magaaladani way kortay intii mashruucan uu shaqeynayay biidnillah ilaahay fadligiisa ku noqotay aqoon aan leenahay ma aha xirfadan dadka dheernahay ma aha dadaal xadka ka baxsanaan sameeyna ma aha mar walba waxaan islahayn war dalka saan war dadka wax ku kordhiyo wadalka wax ku kordhiyo issue igu soo noqnoqday price-kana waxaan rajaynayaa qorshahayga soo yahay insha Allah waxaan rajaynayaa qofka Garowe degan inuusan qiimo inuusan ka hadlin qofka Garowe degan inuusan maskaxdiisa soo galin shirku horaan waxaan ka iri laambadan inay shidan tahay iyo inaysan shidnayn qofka dareenkiisa inaan ka saaro waajibaad saaran way laambadan inay shidan tahay iyo inaysan shidnayn qofka dareenkiisa inaan ka saaro waajib saaran way maxaan ka wadnaa macna haday shidan tahay xataa wuxuu og yahay biilka uu imaan kara wax yar oo kooban macnaha inaad qiimo dhibis fiican sameeyaan ugu dambeyn su'aasha ugu dambaysa oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeye si kooban in muddo ah oo aad jirteen iyo intaad hadda ka dhawaajisay inaad isbitaalada korontada lacag la'aan ku siisaan isbitaalka weyn
saldhigyada sidoo kale masaajidada dadka dhimid kala muxuu ahaa sidoo kale inaad korontada lacag la'aan ku siisaan dowladda hoose qayb ka mid ah inaad muxuu ahaa korontada aad lacag la'aan ku siisaan marka intaas laga soo gudbo ilaa iyo hadda waxaa jira shaqaalihiinu inay lug ku tagaan xaafadaha ama ay muxuu ahaa saacadaha soo qoraan taasoo hadda laga gudbay runtii in muddo laga gudbay baalayaasha inay dhibaato ka jirto dadkii maaragtay ay ku dhibtoonayaan muxuu ahaa magaaladii qaybo ka mid ah inay xoogaa yaro mugdi tahay oo runtii idinka ladin soo eegayo inta muddo aad jirteen iyo farsamadiinu inaysan islahayn mararka qaar maxaad isleedahay ugu dambeyn sidoo kale hadalhayn wax kasta ah in lacagtu badan tahay dhinaca korontada maxaa inuu yahay sanadaha soo socda bismillahi raxmaan raxiim horta dhinaca technicalka waxaa yarkaa aragtaan baa martino loogu yahay waa Soomaaliya odayaashu waxay dhihi jireen wiilkaaga diraacda dhashaa waa dadkii wax la qab diraacda wiilka ku dhasha waa dadkii wax la qab dal burburay oo aan sharciyan iyo aqoonba u burburay baynu ku leenahay waa inuu maskaxdaada ku jiraa wadaniyo saasay tahay mar walba capacity-ga dadka waa dhisnaa dad training u keenaa waa la tababaraa si aqoontooda shaqaalaha kor loogu qaado dadku qiimaha ay naga sugayaan waajibna hor yaalla waaye in aniga hadda ugu dambaysa ka jawaabay qof kasta oo magaaladan ku degan inuusan korontada ka walwalin waajibna saaran way biyaha ka muhiimsan second iyada waaye waxa wadankeena maanta noloshiisu ku tirsan tahay waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso waxa aan ku shaqaynayno oo wax ku soo saarayno oo dhan waa la soo waaridaa waa wax dibadda laga keeno waa wax qiimo doolar ku fadhiya waxaan dalkan ku leenahay ciidda iyo booska wax laga taagayo inta kale shimid bir everything shay kasta oo qalab ah oo korontada idin soo gaarsiiya ilaa wax kasta aad isticmaalaysaan xataa gurigi waa wax inaga nagu soo gala currency hard currency lacag dollar nagu soo gala teknolojiyadda aan nagu muhiimsan oo muhiimadda nool aan rabno oo raadinayna waxay tahay inaan qiimaha jabino inaan aqoonta dadka kor u qaadno in bulshadu aaminto kambanigan inuu yahay kambanigii lafdhabarkooda ahaa groundka dhulka kala soo bilaabay la koray mararka qaybtood qof baa ku imaan wuxuu yidhi thank you very much price waa qaali laakiin adeegga waa helaa annaga waxaas dhiirigelin bay noota inuu yidhaahdo price-kana dhiba adeeggiina waa fiican yahay in la yidhaahdo maaragtay waana run dhaliil maaha qofku income-ka soo gala waa yaryahay qiimo qaaliya noloshiisay ku dhibata ma nihin dad maaragtay meel kale ka yimid dad waddanka ku noolaa waxa ka jira ogaana marka dhinaca xista ee ah technicalka iyo dhinaca ah customer supply-ga iyo dhinaca ah qiimaha jabintiisa iyo korontada tagisteeda oo issue-yadeedu waa badan yahay waxna dadka ka sababaan waxna aniga naga sababaan shil baa dhacaya teesoonkaasu ka tagaya dadkii waa qaylinaya baala gaari ku dhuftay waxaan waa wax ogaada message-kii waxa waaye dawladnimada oo hagaagta problemskana anaga dadku nooga cabanayaan qaybtood ama xooggeeda dawladnimada oo hagaagta bay ku xiran yihiin haddii kooris uu jiro lagula xisaabtamayo qofkan darawalka waa waxa ugu dhibka badan oo hadda shidadiisu nagu dhacaan kuwa intay gooyaan ka dhaqaaqa caruur qabsatay xataa hadduuba gooyey oo dhibkii dhacay kuma simin inuu dadkii badbaadsho maalin walba shil baa wuxuu ka dhacayaa ninaan darawal ahayn oo aan sharciyadu ku wata la siinin oo hadba derbi ku dhufanaya waxaas waxay ku jiraan waxyaabaha problemka anaga docdayada waa run in capacity intaan ka badan la sameeyo awood intaan ka badan inaan sameeyno aqoon intaan ka badan inaan sameeyno fiilooyinkan tusaale ahaan ereygaas waa wax jira underground oo kale markii la dhaho dhulka hoostiisa la marinayaa lacag baa xabay u baahanta lacagan garow ka ururin kara kabacdina dhulka mari karo ma jirto waxa u baahan doonaa ama resource-keena waddanku ay noo soo baxo ama external investors aan helno waxa laga maarmaana design-kaas wuxuu gudbayaa hada wax kasta oo dhulka ka sareeya foolxumay keenaan baaluu foolxumo way nooc doona ha samaysnaado laakiin markuu dhulka marsan yahay waa qurux
yaa marka samaysan kara nin fiiladiisa soo saarsaday kuwa dhulka la marinayay oo qalabkii soo saarsaday qof cost ku raadinaya he has to pay more aniguna shilinka adiga ka qaadan wax ku dhisaayaa adigina qaali waaya ay leedahay bal xagee xaajada loo dhigaa salaamu calaykum waraxmatullah aad baa mahadsan tahay cabdi fataax maxamed cabdi aad baan kugu mahadcelinayaa waqtigaaga aad na siisay iyo waraysigan aad naga aqbashay waana ku mahadcelinaa boqolkiiba sala socotid waxaa jira muxuu ahaa inta badan waxaa laga baqaa waxaa la yidhahdaa space ha la siiyo marka nidaamka waraysiga waxaa qayb ka ah in ninka mas'uulka ah loo mahadceliyo la salaamo laakiin hadda waxa weeye kor baa kaa salaam waxaan ku leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay maadaama corona laga baqayo waan ku mahadcelinayaa boqolkiiba boqol inaan waraysigan intaas kusoo gabagabaysano insha allah. Thank you very much. aad baa u mahadsantihiin bahda tiyaatar dadaalka aad samaynaysaan oo ku faraxsanahay su'aalo wax ku ool ah oo bulshadu markaa u muuqanayso inaad matalaysaan inaadna weydiisaan iyo qaabiyadaad qaabilaadiinu ahayd waxaan leeyahay wax yaroo intaa la eego bulshadu tabanaysa haddaa aragtaan ha ka zuulinin inaan weydiisaan annana waa ka jawaabayna haddii ilaahaydno aad baa u mahadsantihiin. Waa mahadsantahay. Thank you. Assalaamu calaykum.